maanta maxaa taagan intaynu toddobada doorasho galaynay iyagu Soomaali soddonka sano doorasho iska dhaafay waxaa loogu taaglayahay kolba hay'ad ama dawlad shisheeye shiraac u qabato oo lagu soo magacaabo dad fara ku tirsan dhowr boqol inay madaxweyne baarlamaan doortaan ayaa loogu taaglayahay oo arkaysan waxa ka dhacaya waana systemka ma dadku ma xumaa systemka ay qaateen baa qaldan aynu ka baydnay oo maanta arkaysan halkay marayaan waxaynu ku kala duwanahay inagu Soomaaliya haddaynu nahay marnaba colaad iyo faragelin iyo dagaal ay ku qaadamayaan qaad iyagu ha ugu daraataa maanta joogta xamare waad ogeydeen markii berbera aynu la heshiinay qolada carabta inay horumariyaan waxay nagu yiraahdeen baarlamaanka xamaro ogolaado ma lama iman karo dawladda imaaraadkana ilaa United Nations ka dacweeyeen oo ay dalkayga farageliyeen oo goboladayadii bay naga soo farageliyeen waxay soo taageen inay yiraahdaan sanduuqii loo furay dhaqaalaha Somaliland ee lagu heshiiyay shirkii London 2012 in si gaar ah dhaqaalaha Somaliland loogu deeqo inay ka joojiyaan ay ku dacwadaan annagana la ictiraafsan yahay looma gudbin karo ona qabatay dhaqaale waxa maanta xaniban lacag ku dhow ama ka badan 60 milyan oo asad afartii sano dawladda xamar joogtay maanta ee farmaajo ka madaxdeeya banka adduunku uu u qoondeeyay Somaliland oo iyagu soo qaadeen oo yiraahdo anaga u geynina oo aanu ku niri anaga qolada waxba naga dhaxeeyaan lacagna noo soo mari karto oo aanay celinin ee wali meeshooda ku hayaan haddana waa u sheegaynaa banka adduunka iyo hay'adaha United Nations ka jibcada waraxaya iyo dawladaha kale annagu qaran madax banaan baanu nahay ninkana wax nala damca ee aan iska sharayno ama na caawinaya toos buu noo siinaya laakiin xamar wax soo mara annaga waa naga xaaraan halkooda haysta inta ay ka badanba waayo gobonnimadooda kuma doorsanina lacag nalagu gacan maroojin maayo dhaqaala la diiday si cad baan u sheegaynaa annagana ka adkaysanayna si aanu hore ugu marayno dalkayaga markaan soo koobo caaw xamar waxay leedahay waxaanu u dabaaldegaynaa gobolladii waqooyi xorriyadooda anugu meel ka dhaca ka weyn iyo gardarro intaa ka badan garan maayo in caawa xamar ay tiraahdo annagaa xukunno oo Somaliland waa gobolladii waqooyiga oo waxaan u dabaaldegaynaa xorriyadoodii xaggana Somaliland dagaal gudaha ah iyo mid xabada iyo mid cunaqabatayna iyo mid diblomaasiya iyo mid midyaan ku haynaya inaanay madaxa kor u qaadin haddana waanu dabaaldegayaa iyagoo gobollo ah waxay ila tahay waa gaf iyo meel ka dhac weyn waxaa la yaabanahay qolada Somaliland ee taa kagala qayb galaysa ee ugu sacabinaysa waxaan ku soo koobayaa wixii badnaa ee inoo qabsoomay iyo inta kooban oo aanu sheegay da'yarta waxa inoo dhaxeeya inaga iyo Soomaaliyada la sheego in ay Somaliland maanta taagan tahay meel Ilaahay lagu mahadiyo hadday horumar tahay hadday karaamo tahay hadday ixtiraam caalamka tahay hadday gudaha nabadeeda tahay hadday doorashooyinka tahay waana nimco Ilaahay ina siiyay waxaana kooma hadaare oo arinta aan ugu mahadnaqaynaa shacabka Somaliland meel uu joogo oo dhanba hadday naasda wada guusha waynu wadaleena qof kasta Somaliland baa qayb kule oo Somaliland amis shalay berbera caalamka cidii daawatayba iyo cidii aragtayba way ku faraxday ee Somaliland dadka kale qadarin iyo karaama inuu ka bantay walaalayaal dadka maskaxdooda kala duwanta waxaynu ognahay afar sano ka hor markii arinta Axmed Siraayo uu bilaabay madaxweynaha hore Ilaahay ka abaal mariyay oo hindisaha